إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله dad kan xaaska lahayn u guuriya baa Ilaahay weey hadii ay baahan yihiin Ilaahay baa kabi oo faqriga ka dul qaadi doona waa dhiirigelin nabiguna sallallahu alayhi wasallam waxa uu faray dhalinyarada kii awoodi karaya dhaqaale ahaan inuu guursado ha guursado buu yaa macshara shabaab man istataa'a minkum alba'ata falyatazawwaj la jeclaa uu ka qabo islaamku qoyska muslimka iyo jiritaankiisa ayuu aad uga hadlay xuquuqda labada qof ay isku leeyihiin sida suuratu nisaa Ilaahay uu ku cadcadeeyay subhanahu wa ta'ala xaq raggu leeyahay iyo xaq xaasku leeyahay labadaba iyo mid waliba doorka iyo kaalintu qaadanayo iyo hadii ay kala tagaanba waxa xuquuq ay yeelanaysa xaaskii waxa aad looga digay in lagu tacadiyo ama lagu xadgudbo